dhibaato ama musiibo oo dhaha korna musiibo qaran waaye oo ku dhiidi gobolkan la dhahaa galmudug maamul goboleedka galmudug war yani sheego shaxta anu faylanaan ya ku dhigi dad yaa la ka xasuuqi oo Soomaaliyeed oo shacaba oo hubaysanayna oo dad ganacsata xoogsata iyo la ka baabi'iyay si ula kaca oo ku talagal ah iyo limbaabi'iyay wal haba yaraatay oo la ka sheegadaan idoo injirna dhuusamareeb may la ka dilay dad 4 qof يلا كلاي ولا كحسوقي لا بيتوبن كبيلا عفوا 14 كان sidoo kale gaalkacayo iyo mayl kibaab iyay dad Soomaaliyeed oo isku jeedaan koonfur galbeed Soomaaliya iyo la kibaab iyay dadka maamulka gobolka isku jeedi ku hadaleen sidaas oo kale dawladdu ku hadalay bismillah أنت ويكو سلامي بحد الصحافة ده أوديال كدقن كإن درجاتك بسم الله أنت ويكو سلامي بعد الصحافة ده أوديال كدقن كإن درجاتك وسقوق قبلين شركان وأنكو رمان مسيبوين أو كليان مارتين maamulka galmudug oo la ka xasuuqay dadka heer koonfur galbeed ka xasuubiya armaheed iyo inta fadhiina horta way aan ku tacsiyeeyay eheladii iyo qaraabadii oo ku dhimadeen guud ahaan reer koonfur galbeed musiibadan oo maarta ku dhiiday meeshaas oo heerka la ka xasuuqay dadka reer koonfur galbeed iyo aan ku tacsiyeeyay koonfur galbeed oo dhan maalin ka jannada isku tacsiyeeyaan gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii oo ku baxeen dadkaas iyo aan ku tacsiyeeyaan gaar ahaan markii warkii oo soo gudaanadno heer galmudug ismaamulka galmudug waaya lana odayaal iyo dhaqanka siyaasiyiintiyo ulama udiinyo wax garadyo iyo maarta haweenyo maarta arintan oo maarta la ka soo biiray koonfur galbeed way waa arin oo ku jeedaan dadka la ka soo biiray arintan arin la ku murugoodo waaye aran dhibaato dadka reebta waaye kolba aniga waa ilaa in raal ugu ahayna dadka goboladaas ka dhaladeen ambas ku jeedaan amba siyaasiin haadeen ulama udiin haadeen haweenka haadeen kolba raal dadka iyaga ilaa laakiin dad ujeeda gaar ah oo leh oo rabaan umada in iska daraan wal shal tabsiyaan oo labada maamul shal fogeeyaan iyo dadka walaalaha ee qaraabada ah oo maarta labada jaanib ah إني أولاد أحد جانو شلفو جايا دت إنك تلاقين يعني أرجع ما هن دت إني رالك يوم من أرجانو هسا هاته لبعض هذا وبدي ذي إن ويا كجواب سجان لكن سدي ما أرت إن مارا يان ياكو سجان أيجو وده جرأة سياسيين كين علماء الدين كين وحجرت كيني أوديال كذا حالة داس حالة لو كفر هذا كرة معها تلابت اسم قادان واجب كي دت كاسوبيان أو مرياسان أنتاس باسون كسجان أنا أقول رأي كفر قلبت الدين أكسنتين ضد القاد بدن صبر بدن أيان هلين قاعد ضد بوين قاعد أبس مهر لكن أنا أقول ضد القاد صبرك أيام مرتأت نسكت هجليان أو يالكين يا أبيال كين وين فراين مر والب إني صبر يد القاد موجنا وين مر والب فراين دتكني نول ومضح إني نحنول أما غريب كه إني مر فايل اللي بدباديو ولبا تهجلن جار سي نب إن استحضاين إن استهجليان إني إن تهجلن دتك سوقلوتك إني كويان ومرتدين أنا قصاص يا دتك إني مرتني جوا بيجرين ما هنا أبس منه أحد أبسلين قادو لكن ويصير لنا لبعض الجانب اللي كشل نوليا حاجة إننا كنولين كفر قلبات حاجة نكنولين أنا جو مهريان أولاد مهريان لكن واي باسين لنا أرنتاس أرن لكو سبر كورو أرن مارت دبات دت كريبت واي أرنتاس ندت كان ولا لهينه أضيالك سفيلن إني مارت أرنتاس واجب يلمريو أنتي هول هاس كلك لهايين جامبر اللي كقبضه أو أننا أرن سيد إنك نقصيه بدن لويلبو أو أنك قناع أكرن ما نتني كرتو إن شاء الله واي إسفراني أنا قلنا dadka need xanool oo dadkaas ku mid ah in walba alninjaysan sidii horeba aan ni ogaayay amba awiyad amba abyaalka inay dardaarmi jireen
oo aan ni ogayna mana dadka ni dhax jiraan inay maarta in dhibaato alka soo been anagu dadkayna wallahi waa badiyana inay maarta in dulqaad muujiyaan oo maarta dadkaas walba ninjaysan intaas iyo asfaraane ma ana dadka galmudug arintaas idinkaas ku sugaane idinkaas ku wardhooraan maarta waayaan maleeyay ana hadda aan control inii waajib iyo maray doontaan sidin ka dhaqsiya badan wa billahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون هل كان وحن تعسي تيران الله قدرينا dadkii lagu xasuuqay si arxan darada loo xasuuqay oo maamul goboleedka galmudug oo kamid ah Dhuusamareeb meel u dhow tuulo u dhow lagu xasuuqay 12ka bishan ku jirno iyo 14ka bishan oo lagu xasuuqay galmudug gaar ahaan gaalkacyo marka waxaan leenahay ilaahay oo naxariisto sawir iimaanana dadka ka geeriyo ilaahay ka siiyo waxa gax ku baxeen gacanka xaq dara ay dishay marka waxaan leenahay tacsiyan u direen marka koowaad marka labaad waxaan leenahay waxaan daba joognaa baaqi ay soo jeediyeen odayaasha dhaqanka reer Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed ugu weyn yahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya marka waxaan leenahay siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka waxaan ugu baaqaynaa inay arintaas dabagal fiican lagu sameeyo la dabagalo ciddii ka dambeysay xasuuqaasinin in awal marinteeda la siiyo wixii sharci islaamka qabo in la marsiiyo maxaa yeelay waxay sameeyeen waa arin aan loo dulqaadan karin oo xasuuq ah maxaa yeelay sharci islaamka aan waafaqsanayn dhaqanka islaamka muslimiinta aan waafaqsanayn Soomaaliya dhaqankiisa aan waafaqsanayn sameeyeen sidaa daraaddeed waxaan leenahay marka dadkaasay waa arin waxay sameeyeen oo aan loo dulqaadan karin waxay u baahan yihiin xaqii lagu lahaa oo muslimka ku lahaa dhiig ay daadiyeen in laga awal mariyo xaqii muslimiinta in loo soo celiyo dadkii la laayeen xaqoodii in loo soo celiyo sidii shariicada islaamka qabta in loo soo celiyo ayaan u baaqaynaa odayaasha dhaqanka iyo maxaliyada iyo siyaasiyiinta reer galmudug waxaan leenahay waa ognahay reer galmudug dhammaan arintaas mowqif kuma ahan laakiin ashkhas ka shaqeynaayo dana khaas ah isku dir ka shaqeynaayo ay sameeyeen waxaan ka codsanaynaa iyagana oo baaqaynaa in arintaas ay maxaliyada dabagal ku sameeyaan ragga arintaas ka dambeeyeen sharci islaamka waafaqsan ay soo hortaagaan shariicada islaamka waxay qabtay ay marsiyaan sidii dadka kale ay walaalahooda ama muslimiinta ah oo dadkaas laga laayay qalbigooda ama u dego كمش كلسوني وإماته ولا شقين وإماته هذا وبالله التوفيق. بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل كان وحن تعسيت راني لا ودرينا ضدك لقول لاي سيد حق درها فوشحن ودين الإسلام كنا يعني أيسن رالي كهن دقن كسوبان صوماليات أيسن مهل وجرن الله لاي قال كعيو dilwadareedka loo geystay dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa halkan tacsiid ilaalin leh ugu direynaa ehladii dadkaas ka soo jeedeen la laayay gardarada lagu laayay ayaan u tacsiideynaa ilaahay u naxariistay inta dhimatay qof kasta waqtigiisu dhimana kul nafsan daa'iqatul maut nafkasun geerida way dhimanaysaa waqtigoodu ahaa inay dhintaan laakiin gacan bina aadan oo xaq darra ku socota ayaa ilaahay ku bixiyay ilaahay u naxariis jannada firdaws ilaahay ka waraabiyo ehelkoodana waxaan leenahay samar iimaan ilaahay idin ka siiyo teeda labaad halkan waxaan ku taageeraynaa baaqo odayaasha dhaqanka iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo federaalka siyaasiyiinta ka soo jeeday Koonfur Galbeed digili mirifla ay ka hadleen oo arintaas ay ka dhiidiyeen ayaan taageeraynaa waxaan leenahay afka kaliya in wax laga sheega maaha arintaas sida ugu dhiidiseen ilaa يعني أي لقى جارايو فعل كرسمي جا يعني وحيابها لقى سجاي feedback عن سجين إلا وصح كنا قناة وحن لنا هاي هكذا بهرين هذا ودياش دقن كاتهين حديث سياسيين تتهين هكذا بهرينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون
waxaan halkaan isku imaanay sidii dadka iga horreeyay bay u sheegeen waxaan daba joognaa dhacdadii daraad ka dhacday maamul goboleedka Galmudug laba dhacdo oo kala daran ayaa meesha ka dhacday dhacdadaas dhacday iskama dhicin waxbay daba socday dad ka mid ah maamul goboleedka Galmudug ka mid ah oo madaxdooda ka mid ah ayaa warbixin ka soo baxday warbixintii markii ka soo baxday kadibna maxaa la yiraahdaa dhacday ficilaa dhacay ficiladaas marka macnaheedu waxa weeyaan dad baa barnaamijkan amray waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa mu'amaraad oo la isku og yahay oo dadka oo dhan isku og yihiin si hoos lagu heshiiyay kadibna maxaa la yiraahdaa dadkii looga talagalay ay fuliyeen ayaan anagu maxaa la yiraahdaa barnaamijka sidaas ay u muuqdaa wayna cadda wax hadda oo maxaa la yiraahdaa qarsoona ah iyo mugdi kama jiro marka dhacdadii waa dhacday jariimadii waa dhacday faldambiyaadkii waa la geystay faldambiyaadkii markii la geystana waxa weeyaan wax la isweydiinaya talaabada la qaadayo iyo meesha la marayo waxna waa la wada yaqaana maxaa la yiraahdaa waxa loo baahan yahay marka faldambiyaadkii waa la hayaa waa dhacay haddii dhacday dhacdada ay dhacday dadkii geystayna waa la yaqaana marka hay'ada nidaam iyo garsoor jiro meeshii loo mar lahaa waa la yaqaana anaga kuma qanceyno madax salaax iyo maxaa la yiraahdaa ma yeeleyno waa la og yahay horeen waa loo sheegay dad sabar badan dulqaad badan ayaana taasna waxa keenayso dadka ka soo jeeda koonfur galbeed waa dad harmigaal ah hadaariyiin ah wiligood dawladda ay ku soo noolaayeen mar kasto dhibaato loo geysto waxay ku qanaan inay nidaamka ay maraan nidaamku waan mareynaa laakiin haddii hadgudubna looga sameeyo faman ihtadaa calaykum fa'tadu bimithli ma ihtadaa calaykum haddii hadgudubna looga sameeyo hadgudubkiina looga sameeyay mid la mid ah ayaan sameyn doonaa haddii aan wax aan ku qanacno ay maxaa la yiraahdaa maamulka koonfur galbeed maamulka maxaa la yiraahdaa Galmudug uu sameyn waayo siyaasiyiintooda madaxdooda odayaashooda iyo dadka aqliga u saaxiib ah haday wax lagu qanco ay sameyn waayaan anagu maxaa la yiraahdaa talaabo ayaan qaad doonaa ogaada billahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baliilayde bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadkii dhinta Allah u naxariisto oo Galmudug Dhuusamareeb iyo Gaalgacay lagu dilay Allah u wada naxariisto dhamaantooda marka xigta waxaa jiro dad aan ku fikirin mustaqbalka meesha ay u sii socdaan aan ku fikirina waxay sameeyeen dad laayeen ayagoon ku xisaabtamin dadkii laayeen dad la mid ah inay koonfur galbeed joogaan ay degan yihiin ilmahooda joogo dadkooda joogo oo cidna ka maqaneen wiliba qabaa'ilaadkii falkaas geystay naftirkooda ku sugan gobolka Shabeellada Hoose iyo koonfur galbeed guud ahaanba waan awoodi karnaa sida ay sameeyeen inaan sameeyno laakiin waxaan u sheegaynaa xadgudubyadan tirada badan ee soo laalaabtay in aan lagu dulqaadan doonin lagu dulqaadan doonin diyaarna aan u nahay inaan ka falcelino marka xigta odayaasha waan taageerayaa warka ka soo saaray koonfur galbeed siyaasiyiintana waa taageerayaa waa ajiidaya falkaana dadka dhintayna waa dad lagu xisaabtamooyo oo taariikhdana ku jiro lana raba xuquuqdoodii in la soo celiyo marka xuquuqdooda celintooda ma ahan inaan saas ugu sabarno ugu dulqaadano ma ahan waxaan ku qanaceynaa qofka dhibkaas geystay in noo xiro kadibna la soo istaajiyo cadaaladda la mariyo sidee wax u dileen iyagana loo dilo dhici weysay ku xisaabtan waa la isla joogaaho meeshii aad martaba waa laga warhayaa ogow dilka aad geysatay micno dara ma ahan ciyaarna ma ahan waa qof nool aad dishay intaasoo qof inta bannaanka geysatay aad ku talagashay dil haddii aad saas aqligaaga oo sameeyey mid ka daran oo aqligeena leeyahayo waan ka jawaabeynaa waana arki doontiin haddii jawaab degdeg laga soo bixin waayo midaas waxaan u dirayaa dadkii falkaas geystay shacabka meesha ku nool aan falka luqta ku lahayn ha ka shaqeeyaan dadkaasi loo soo qaban lahaa haddaysan ka shaqeynin waxay tusaysaa inaad idinkana raali ka tihiin ogaada haddii aad ku talagasheen koonfur galbeed dadkeeda Dhuusamareeb iyo Gaalgacay joogaan hadaa ku talagasheen si la mid ah idinkana waxaad u joogtaan koonfur galbeed ku xisaabtama waana isku la xisaabinaya insha Allah doo Ilaahay gaarsi dhiigaas mid oo dheedheel ku dhumayna ma noqon doono ku talagal in
meel walba aad joogto lagaaga argudi doono baaqi odayaasha aan ku joogno ogaada intaas wabillahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن لله وإنا إليه راجعون. وحان أد وحمن هاي ونقل قلي لبعتني كذا عدي قلمذك يدو سمراب وحان لين هاي مركل إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الكي وحود بجوجا علماء سياسيين أضياء الرقمين iyo madaxda koonfur galbeed ayuu hadalkayga doo joogaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.